haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarli iyo wax ugu qabo wana lama huraane hagarli iyo wax ugu qabo hantiyay macaan waa midaan oy laga orane helayoy hantiyay macaan waa midaan oy laga orane helayoy daawadayaal soo dhawaada imika waxaan ku suganahay dekedda magaalada Saylac oo ah meel aad iyo aad runtii u qurux badan sadalka kaarkiisaan waatan waxaan tagi doonaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan tagi doonaa Sacdadiin waa goob dalxiis waxa weeyaan jasiirad ka mid ah jasiirada ugu quruxda badan ee Soomaaliland laashkaan raacayna waa diyaar haddii ilaahay ka dhigo Cabdilaahi weela socod Cabdilaahi soo dhawaad mar labaad iyo salaam ya asxaabta ka furo qismanta galabta waxaan joognaa degmada magaalada taariikhiga ee Saylac ee bariga ugu dambeysay hadal haytu maxay haytoolay ku badnayd waxa weeye goob istiraatiijiga waa goob caalamiya sida la wada socotaa hadda waxaan u diyaarnahay safar badeed oo badda waxaan tagaynaa deegaanka Sacdadiin laashashka eriyaday waa tan shidaalka loo xidhiidhinayo laashka haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarli iyo wax ugu qabo odayaal halkan kaarkiisaan waxaan xidhanay laaskooladihii loogu talagalay badda ilaa hadday wax dhacaan inaad ku yara dabaalan karto saad halkan ka aragtaan laashku badda iminkaanu gelaynaa istaadhay oo nala dhaqaaqay laashkii aanu raacaynay isla markaana aanu ku tegaynay jasiiradda Sacdadiin waa markii ugu horreysay ee aan socdaal ku imaado magaalada Saylac iyo jasiiradahan ay caanka ku tahay ee Sacdadiin iyo Ceebaad waxaan iminka tegi doonaa jasiiradda caanka ka ah magaalada Saylac ee Sacdadiin waa goob run ahaantii aad kuu soo jiidanaysa isla markaana qurux badan oo ku taalla badda dhexdeeda daawadayaal halka kaarkiisaan baash xoog bay u soconaysaa dabaylo badan baa dhacaya tiimka laaskooladay wada xidhan yihiin Allah dhalliyahay daadaal bay kuwa dunida horu maray dhalliyahay daadaal bay kuwa dunida horu maray inta duusha meeriyo dayaxay ku gaadheen anna dahabkan ku agdaadsan arabkeena iyo dalagyadan u baahanta wax barata taariib lagama doorto dooni lagama raace masaafo ka badan 60 kaalmayl oo aanu ku soo jirnay badda waxaanu hadda soo gaadhnay jasiiradda Sacdadiin oo ku taalla badda dhexdeeda waa goob bilicsan oo qurux badan isla markaana ku fiican dalxiiska oo ay ka baxday dhir cagaaran aad iyo aadna ku soo jiidanaysa goobtan waxay ku taallaa gobolka Salel magaalada galabta garbihii hore way iga farxad badan tahay aad iyo aad iga farxad badan tahay sadalkan kaarkiisa waxaan joogaa jasiiradda Sacdadiin oo ku taalla gobolka Salel degmada Saylac bay u dhowdahay waxay u jirtaa wax ka yar 10 kiiloomitir 15 mil buu laashku soo socdaa waa meel aad iyo aad u qurux badan oo dalxiiska ku qurux badan oo daawadayaasha daafaca caalamka daawanaya waxa leeyahay war waddankiina inta wadamada dalxiisayaasha Turkiga iyo Antalya aadaysaan halkan baa dalxiis u baahan halkan baa waddankaaga halkan baa dhaqaale u baahan ku soo dhawaada haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga saaxiibayaal soo dhawaada doontu imika way kala jeesanaysaa laashku imika wuu kala jeesanayaa bartii ugu dambeysay ee Sacdadiin baanu joognaa goob aad iyo aad u qurux badan saaxiib kala jeeso jasiiraddan Sacdadiin ay idin muuqata waa jasiirad ka mid ah jasiiradaha ugu quruxda badan ee waddanka waa goob ay yimaadaan dadka daashoodka iyo dalxiiska ku jira ee yimaada waddanka gaar ahaan gobolka Salel magaalada madaxdiisa Saylac
waa meel run ahaantii aad iyo aad u qurux badan oo hadda ay joogaan dalxiisayaal ka kala yimi magaalooyinka kala duwan ee Somaliland iyo Djibouti. xog uu siiyay inankii laashka noo waday ayaa waxa uu sheegay qadarka lacageed ee uu halkan dadka ku keenaan oo gaadhaysa qadar lacageed oo dhan $160. dad yow aad u fara badan ayaa halkan yimaada si ay ugu qaataan waqtigooda firaaqada isla markaana ay yimaadaan goobtan bilicda san ee biyaha iyo greenka dhirtu ay hareeraha ka marsan yihiin oo si dabiici ah ay dhirtan u baxday isla markaana gu iyo jiilaal toona aanay qalalin oo caleenteedu ay saaha sad halkan ka arkaysaan geedkan jasiiradda ka baxay ee aadka ugu badan waxa la yahay bakhay siday reer Saylac noo sheegan bakhay baa la yahay laashkii baa imika nala dhaqaaqay waka galabta waxaan ku suganahay jasiiradda Sacaadadiin ee ka tirsan degmada Saylac ee gobolka Sanaag. alxamdulilah rabbil caalamiin si fiican baa naga soo qoysay saaxiib dhinaca kale maamulkeeda alxamdulilah rabbil caalamiin ku hooyo ku dambeys alxamdulilah وبروغ سوروي يا سو دواad Sacaadadiin jasiiradda Sacaadadiin meel kamid oo laga degi karo isla markaana laashka inta ka soo degto aad ku baashaali karto ku dabaalan karto qurux badan oo aad iyo aad u fiican halkan ciideedu waa meel aad iyo aad u nadiif ah sida ka arkaysan waa meel aad iyo aad u nadiif ah waxyaabo dalka meel kamid ah meelaha ugu quruxda badan ee ku jirta haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga dabaylo badan baa badda ka dhacaya markaa laas xoog baan ku wada anaguna sagxadda baska fadhiya sagxadda laashka fadhiya waxbaa dhacaya waa safar markaad eegto cimilada caynkoodiyo kale ayaad ii cajabisay cadradii haweenkay calab waa halgiisay dabaylo badan baa dhacaya laashkuna samadaas u badaya samada laashku samadaas u maraya dabaylo dhacaya markaa muuqaalkii quruxda badnaa ee aan idinka soo duubay Sacaadadiin daawadayaal imika waxaanu soo gaarnay dekadii Saylac ayaanu soo gaarnay muuqaalkii quruxda badnaa ee aan idinka soo duubayay goobta quruxda badan ee Sacaadadiin intaasaan ku soo gabagabeynaya muuqaalkana subscribe saara war subscribe like gareeya share gareeya fogeeya muuqaalada dhammaan muuqaalada gobolka Saylac iyo Sanaag iyo awdalna ka soo daawo channelka AK Vlogs aad iyo aad u mahadsantihiin daawadayaasha qiimaha qadarinta iyo